waxaynu ku wada nool nahay adduunka dhammaanteennu waa inaynu isu kaalmaysannaa sidii aannu u wajihi lahayn caqabadaha jira kuwa haddan haysta iyo kuwa cusub guud ahaantii waxaynu haysannaa ruwaayadda isbeddelka maalmaha qof walbow dunida intaad joogta nolol doonisteediyo dadaal baa ku faran iyo daryeelkii naftaadii السلام عليكم. وعليكم السلام. walaal iga raali ahow waxaan ku moodayay gabar aan aqaano. dhib ma lahan walaal waa caadi taasi. okay mar haddaan ku istaajiyey waxaa la yidhaahdaa Cusmaan waxaan deganahay Ooman. waa tahay anigana waxaa la yidhaahdaa Canab. Canab ayo. oo maxaa magacayga aabbahay ka rabtaa adiguba waxaad ii sheegtay Cusmaan oo kaliya. iga raali ahow waan ka ilooway magac maskiin lagama ahan. aabbahay waxaa la yidhaahdaa ugaas liibaan. oo yaa haddana magac maskiinka ah anigana aabbahay waxaa la dhahaa aadan. abbaayo inakeen muqaayaddaan ku sheekaysanaynaa meeshan waa waddo. walaal Cusmaan iga raalli ahow waan degdegsanahay. marka gurigiinna aan kuu raaco. gurigeenna waa fog yahay waa koonfurta Ooman weeye. abbaayo Canab dhib ma lahan waan ku raacaa. may ima raacaysid ee dantaada sheego. haye dhib ma laha aan kula qaada alaabta. may mahadsanid aniga ayaa ku filan. abbaayo Canab waan kaa helay waxaan rabaa inaan kuu sheegto xiriir jecel. yaa waan ku arkay waan ku caashiqay miyaa. maya abbaayo jacaylka sidiisaba waa aragtida ugu horraysa ood qof aragtid. raggiinna waa damac badan tihiin gabar waddada iska maraysa ayaa istaajinaysaan kadibna waad iska jeclaanaysaan. abbaayo ma damac badne laakiin quruxdaada ayaa isoo jiidatay. waxaas adaa lagu dhahaa calool jilaaca iyo hadalka macaan gabdhaha ayaa dibin ugu dhigtaan lugooyo maxaa tihiin ragow. maya abbaayo aniga ma ihi kuwaas camal anigu waxaan kaa rabaa guur iyo mustaqbal. saas miyaa okay waan baxaa ayaan iga leexo. haye inakeen abbaayo. aqas iga daa gacantaada saqajaan ayaa tahay. haye iga raalli ahow saqajaanimaha iila imaanin. abbaayo waan ku jeclahay soo kuma odhan. beer jilaaca iga daawariyaa. la'aantaada nolosha wax qiimo ah iima yeelanayso. hadallada macaan ayaad gabdhaha ku sirtaan. abbaayo maya aniga noocaas ma ihi. raggiinna haddaad gabar aragtaanba waad waalataan. abbaayo ima taqaanid aniga sidaas ma ihi. oo maxaan kaa garanayaa oo adiga yaa tahay kuma aqaaniye. oo ima garanaysid. may Cusmaan ayaa la yidhaahdaa magaalada Ooman awowgii ayaa looga magac daray. haye faanka iga daa. nin isfaaniyey waa ri isnuugta ayaa la yidhi ee ogow kuma faanaayo. haye waad ii daahisay ee iga leexasoo kuma dhihin. qofka muuqaalkiisa laguma xukumee wax ila qabo. maxaan kula qabtaa. jacaylka aan kuu sheegtay. danla'aan ayaa tahay ee iga tagaan kaa tagay. miyi danlaabe. maca salaamo bye. fiiri. hee nambarkaada isii aan kula soo xiriiro. kuma siinayo lambarkayga ee idhaaf. xaggeed joogtaa. guriga aabbahay ayaan joogaa. guriga adreeskiisa isii abbaayo aadaan kuu jeclahay si aan kugu sheegto jacaylka aan kuu qabo. kuma siinayo. oo maxaa dhacay. nabaday walaalow waad i daahisay. iga raalli noqo haddaan ku daahiyey xumaato igama ahan. haye weli calool jileeca maa wadaa aniga ma ihi kuwa calool jileeca wax looga qaato. abbaayo weligaad jacayl kuma soo marin miya maxaad igu adkaynaysaa. hadduu isoo marayna maxaad isku adkaynaysaa abbaayo. xaggeen kaa helaa si aan kuugu sheegto. maxaa kaa gala waxaas adiga shaqadaada ma ahan. maxaad saan dhan iskugu adkaynaysaa xaggeen kaa helaa si aan qada kuu geeyo. soo dhowow hibaad. waan dhow ugaas walaal mahadsanid. xaliimo. hee aabbo. maxaa la fadhidaa kac maamada wax u keen. shaax ha dhihin caana ha dhihin oodka ha dhihin cambulo subag lagu daray waan diyaariyey aabbo. soo dhowow hibaaq mar kale. walaal wiilka aan sodoga u ahay dhaqane anigaa ku dhahay uwac hooyadaa ee muxuu kuu sheegay. ugaas walaal ma wax dhibaa jiro dhaqane ugaasunbaa ku wacayuu igu yidhi mise waa beentii. maya wax dhiba ma jiraan dhib ilaahay naga hayee wiilka dhaqane iyo gabadha xaliimo ayaa raba inay Ooman u guuraan. kow safarkan degdegana maxaa waa ugaaso walaalo.
hibaaq mid ogow hee talada xaggooda ayay ka timid sax waa wax ay labadooda isku afkarteen haye adna maxaad ka leedahay waayahay ugaasow korwaayel waa wada indho haye sannad ayay nala noolaayeen gurigeenna dhaqane iyo xaliimo markaan u kurgalay dhaqankooda wanaag suuban waan ka ajiibay marka horeba adi unbaa diidanaa ugaasow haddana haddaad aqbashay maxaan ku diidi hooye aabe waad mahadsantihiin aniga wax la qariyo ma aqaani anigaa ku dhalay geesnimadaas gabadhayda hooyo hibaaq ayaan rabaa inaan weydiiyo su'aal muddo maskaxdayda ka guuxaysay waad i weydiin kartaa gabadhayda aniga iyo wiilkaaga dhaqane hee hal sana ayaan ku wada noolnay gurigan sax hooyo hibaaq weli ma noo timid arooskeenna kadib maya gabadhayda aniga umulise ayaan ahay mashquulkayga ayaad iska badan waad og tahay taasi ma kula tahay adigoo foola inaan kaa maqnaan lahaa marnaba waa runtaa hibaaq qof mashquul badan ayaa tahay ugaasow goormay rabaan inay baxaan xaliimo iyo dhaqane ilaahay idankii waxaan rajaynayaa berri subax in wiilkayga cusmaan wad dhaho asaga ayaa ooman guri ooga kireeyey waad ku mahadsan tahay aabe inaan muddo hal sana ah gurigaaga wada joogna anigiyo xaaskayga xaliimo taasi waa waajibkayga ma taqaanaa sababta aan saa u sameeyey maya waxaan islahaa xaliim inay kaa fogaato ma jecla aabbo laakiin ma aqaana sababta dhabta bal ii sheeg gabadhan xaliimo hooyadeed oon adduunka u jeclaa ilaahay ha u raxmadee ayay waag tahay gabarna xaliimo keliya ayaa ii dhashay waa runtaa aabbe xaliimo aad ayaad u jeceshahay jacaylkaas ayaa igu qasbay inaan ogaado gabadhayda ninka aan ku aaminayo aabe hee ninkayga dhaqane siduu kuula muuqdaa maasha allah waa nin aad u fiican hawlkar ah gabadha waan ku aamini karaa hadduu nin xun noqon lahaa maxaa dhici lahaa aabbo gabadhayda taas ma isweyddiin bay leedahay hee bisinka maxaa dhici lahaa waan kaa furi lahaa yaa waa furi lahaa laakiin wiilkayga dhaqane waa boqor aan ku aamini kara boqoraddayda maasha allah wiilkayga miyaa dhahda ugaasow haa waa wiilkayga wuu shaqaystay inaan magacaasi ugu waco mahadsanid aabe farxad darteed ayuu hadalkaiga lumayaa ugaasow ma aragtaa wiilkayga inaan si fiican u soo barbaariyey walaalow aad iyo aad inkastoo marka hore aan ka shakisnaa laakiin hadda waan hubsaday inuu yahay nin qofkii xaliimo ay mudnayd dhaqane haddii uu tijaabadaada ka gudbo ugaasow waxaa anigana tijaabinayaa gabadhaada xaliima inay tahay marwada u qalanta wiilkayga runtii tijaabe igama ahayn maxay ka ahayd ee dhaqane ayaan rabay inaan ka caawiyo inuu barto sida wanaagsan ee reerkiisa uu u dhaqan lahaa maasha allah anna gabadhayda ayaan barayaa siday ku noqon lahayd xaas wanaagsan aabe aad ayaan kuugu xiisi doonaa gabadhayda aniga ima xiisi doontid miyaa adiga adigana sidoo kale hooye waan kuu xiisi doonaa waa idiin xiisi doonaa xaliima iyo dhaqane annagana waan idiin xiisi doonaa aabbe iyo hooye waan ku faraxsanahay sida waajibaadkaada u gudanaysay muddada ay ila noolayd insha allah waan idin soo booqan doonaa mar walba hooye aabe ducadayda ayaad qabtaan ilmahayga nolol farxadla ayaan idiin rajaynayaa waan ku faraxsanay in wiilkayga noloshiisa maanta uu xoroobo ugaaso oo xilligan doono aan soo booqan karo walle eyaa hee hibaaq yaa ka hortaagnaa sanadkan oo dhan inaa imaadid ugaasow qofna igama hortaagnayn walaalo beeni waa camal sheedaan laakiinse aniga unbaa isxakameeyo go'aansaday inaan imaan wakhtigaas walaalow ma ii sheegi kartaa sababta aad go'aankaasi u gaartay ugaasow taasi ay weydiin walle waa waxaad si fiican u ogta anigana aan ogahaye hooyo kullay wax yar ma isku haysataane ma ii sheegi kartaa xumaanta idin dhex taal adiga iyo aabe guuleed ahaa saaxiibow ii waran alle korma iskukeen dambaysay haa wallaahi ibnaadan iswaaye arrin lee kala geysay saaxiibow ii waran xaggee kuu dambaysay alxamdulilah saaxiibow meesha igu ogeed leh igaa waran qoyska alxamdulilaah ilaah waa noo nimcay berisburisaa lagu jira haye haa mar haddii aabbo lagu dhahayo fadhi maaba jiro waa runtaa saaxiibow aabbannimadu waa mas-uuliyad weyn nima ma xasuustaa xilligii aan isku fasalka ahayn waxaan ku riyooy jirnay inaan aabbo noqdan haa alla maxaa dhib badneed geelow 2 jir uu soo maray sax haddana oday la noqday macalinka xisaabta ayaan xasuustaa markuu kugu qoobin jiray adigoo gabadhiisa shukaansanayso saaxiibow wiil waxba ma ilowdid wallaahi hadda oo calaad oo xaas laha weliba aabba aha waa ilaahay mahadiis haa saaxiibow ilmanimadu waa cudur laga karo horta saaxiibow yaa ka war haysaa ardaydii kaltuumoo naas ah kaltuumo ah wax kaltuumo la dhahaya naguma fasal aheene
waa runtaa fasalkeenna ma ahayn gabar aanagu fasal ahayn sidee uga warhaysaa marka intaan arrinteedna kuu sheegin nio ii tataababal niyow maqana jooga ahayd markii aan arrinta kaltuumo kuu sheegay hee saaxib maxaa dhacay waagan iskuulka dhiginayna wuxuu ahay wakhtigii ugu adkay noloshayda kaltuumo darteeda haa laakiin colaadow kaltuumo haddaynagu fasal ahayn galaaskay ka dhigin jirtay markuu dugsiga dhexe ahayn ayadan dugsiga sare ayay dhammaynaysay farqi aad u weynaa noo dhexeeya sidee saamayntaasi ay kugu yeelata marka waan jeclaa weliba si indholaan ah qof kaa weyn maa jeclaatay jeceyl weynaanii kala saree ma yaqaano haddayba sidaasi tahay maxaa u guursan weyda marka waxbarasho inay dhammayso way jecleed anigan waxba ma haysanin waay marka dahbaa u guursatay calaf haddana ilmahaygi hooyadood waay marka waab ilowda kaltumo soo maha macquul ma tahay inaan ilow jeceylka ugu horey sax waran saaxiibow maxaa haysaa sheekada kaltuuma inagu dheeraatay nio anigu weli shaqa ma helin weli guriga adeerkii aan iska joogaa sax colaadow saaxib inaan guursadaan go'aansaday yaad guursan rabtaa saara mis aamino may maxaad u aamastay gabardhaad guursan leed maad ka fikiraysaa sidaan ahay bukaan socod markii baantalaysiri shay mara dacar haystiisii aabanee iga soo xasuustay heystaa noo dambaysee yaad go'aansatay inaad guursato caysho yaa weligayaan jeclaa qoftaas soo maha caasha gabardhaad ilmaadee raheedeen haa wixii gabarraayo noloshaa ku jira caasha maad ka dooratay haa saaxib laakiin halkaasi dhibaato igama hayso hee saaxiibow qoftu way isdabaalinaysaa taada kalena maba aaminsano inaan jeclahay aabbahe toos ugu tag saaxiibow intaan u tago ka waran hadduu isoo diido baxar ma ay geline nio inaan iyada iskayla hadlaa ii dhaanto taasi waa nolosha reer ooman garasley iyo carasan iyagoo ku guda jira noloshoodii maalinlaha ah sheekooyinkoodii oo xiise badan kala soco ruwaayadda isbeddelka maalmaha ruwaayadda ayaa waxaa maalgeliyey hay-adaha qaramada midoobey oo kale ah UNFPA iyo UNICEF deeqilabaa bixiye ruux kastoo duqaato samirteed ka saarto howl kastoo docdiisa aan ka daalin habiiba darajiyo wax weyn helo ayaa ay berita gaari